seminaarkan oo ururka macallimiinta Soomaaliyeed u qabatay 30 ruux oo ka mid ah maamulada iskuulaadka ku yaala gobolka Banaadir ayaa waxaa lagu baranayay sinaanta waxbarashada iyadoo diiradda lagu saarayay sidii waxbarasho loo dhan yahay ay u heli lahaayeen dadka baahiyaha gaarka qaba iyo gabdhaha kaasi oo ay ka soo qayb galeen ururka macallimiinta Soomaaliyeed maamulada iskuulaadka macallimiin ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho inta seminaarku socday ayaa waxa ay ku soo bandhigeen kasoo qaybgalayaasha aqoon isweydaarsi oo si koox ay ugu doodayeen sidii loo heli lahaa waxbarasho loo dhan yahay oo loo siman yahay gudoomiyaha ururka macallimiinta Soomaaliyeed Professor Maxamuud Cumar Aadan Saxane oo furay tababarkan ayaa waxa uu kula dardaarmay maamulada kasoo qaybgalay tababarka inay u gudbiyaan waxa ay ka barteen bulshada inteeda kale kan xaruntan waxaan ku qabanay magaalada Muqdisho seminar ay iska kaashadeen ururka macallimiinta Soomaaliyeed iyo hay'adda FSOM oo loo qabtay 30 maamule tababarkaas oo ujeedadiisu ahayd in macallimiin in maamulayaasha aqoontooda xagga maamulka kor loo qaado ayna macallimiintu ka shaqeeyaan maadaama iyagu yihiin maamulayaasha iskuulada tacliin loo dhan yahay ama waxbarasho loo dhan yahay ama waxbarasho loo siman yahay oo ay ka wada qayb galayaan dadkoo dhan seminaarku kaas ayuu ahaa qaar ka mid ah maamulada iskuulaadka oo ka faa'iideystay seminaarkan ayaa ka warbixiyay ahmiyadda uu u leeyahay seminaarkan bulshada iyo waxa ay ka faa'iideen waa masuuliye leh ka socda iskuul yiraahdo iskuul Sudawd maamulka ah barnaamijka maanta seminaarka ka qayb galay halkiisu wuxuu ahaa sinaanta waxbarashada ee loo sameeyay si loo heli lahaa marka dhammaan si guud markaan hadalno diiwaanka seminaarka ee maanta ka qayb galnay aad u muhiim u ahaa waana bogaadinayna in la helo fursad waxbarasho isku mid ah ardayda Soomaaliyeed ayuu ku saabsanaa waana dabcan wax jira gabdhaha iyo wiilasha in fursadda wiilasha la siiyo badana aan la siinin gabdhaha markii laga soo bilaabo ilaa iyo miyiga laga soo bilaabo laakiin hadda wacyiga jira uu ka duwan yahay kii hore waana wax aad loogu baahan yahay waxaan ka faa'iidinay waxyaabo badan oo ka mid tahay ciladaha iyo caqabadaha haysta xagga waxbarashada oo loo sinaan iyo waxyaabaha ka yimaada iyo doorka ay ku leeyihiin waalidiinta maamulada waxbarashada community-ga ay ku leeyihiin kaalinta ku leeyihiin si wax loogu bedelo dabcan fariimo oo muhiim ah ka soo baxay oo loo gudbinayo bulshada qaybeeda kala duwan waxaan aad u faraxsanahay maanta inaan tababarkan ka soo qayb galo ku saabsanay maxaa la sinaanta waxbarashada gabdhaha iyo wiilashaba wax badan aan ka faa'iidnay waxaan qiimeynay in hadda samakan uu yahay waxbarashada gabdhaha iyo wiilasha iyo cadaaladda si u kala helaan wax badan aan ka falanqaynay waxaan sidoo kale ka hadalnay iskuulaadka baahida ay u qabaan inay helaan gabdho maamulka ah iyo kaaliyaal iyo muhiimadeedan iyada naftirkeeda meesha tababarka qayb ka ahay waxaan aad ugu faraxsanahay barnaamij noocaana inaan nasiib u yeesho inaan ka qayb qaato Muuse Cismaan Abtow telefishinka qaranka Soomaaliyeed Muqdisho